الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش قيمة لملك استوى جوكتان هابين وناكسن سيدا هردع برنامجك أدكو أركتان وحا وارن لقد يقرون كدياردها مقالة مقدشو قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوغة مقالة مقدشو محمود وتابت عبد محمد ودوان مدحوينها الصومالي حلق قادس وكسميي waxaan rabnaa inaan kaga hadalno barnaamijka xilka qaadistaasi madaxweynuhu uu ku sameeyay gudoomiye taabid kadib qalqalgelin dhinaca ammaanka ah oo ka bilaabatay magaalada muqdisho weerar la qorsheeyay in lagu qaado gudoomiye taabid gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir xubno ka tirsan iyo dhowr gudoomiye degmo wararkii ugu dambeeyay ee muqdisho laga helay waxay sheegayaan in gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cabdullaahi xaaji irig laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho isagoo ku wajahan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya waa ihaano waa wax laga xumaado waa dhaqan mooryaannimo iyo dhaqan hogaamiye kooxeednimo oo madaxda dowladda qaarkood ay ka bilaabeen garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyo guud ahaan magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir waxa uu u socday magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya halkaas uu ku booqan rabay qof qoyskiisa ka tirsan oo xaalado caafimaad u jooga wuxuu rabay inuu ka baxo garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaa lagu wargeliyey in ra-iisul wasaaraha soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ka dhigay warqad waaran ah gudoomiye taabid gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada cabdullaahi xaaji irig gudoomiyaha degmada hodan gudoomiyaha degmada waaberi iyo gabar xoghayo ka ahayd gobolka banaadir maalinta talaadada waxaa qorshaysan xil wareejin maamulkii xilka laga qaaday ee gobolka banaadir ay samaynayaan waxaa xilka wareejinaya gudoomiye taabid ku-xigeenkiisa laba ku-xigeen baa saddex ku-xigeen baa jirtay mid baa la reebay labadii ku-xigeen xogaayihii gobolka intaas baa xilka wareejinaysa maalinta talaadada ah gudoomiye taabid wuxuu sameeyey guddi xil wareejin laakiin waxaa soo baxaya warar ififaalo ahaan aan wanaagsanayn waxaa la qorsheeyey oo ra-iisul wasaare khayre agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada iyo shakhsiyaad qaab qabiil isku abaabulay oo ku dhow madaxweyne farmaajo waxa ay qorsheeyeen mu'aamarad la rabo in lagu xiro gudoomiye taabid runtii gudoomiye taabid wuxuu ahaa nin wax badan qabtay qofkana dhibintiisa waa la siiya wuxuu qabtay waa lagu ammaanaa madaxweyne farmaajo waxaa lagu ammaanayay socdaalkii iyo safarkii uu ku tegay deegaano iyo degmooyin madaxdii ka horreysay aanu tegin oo ku yaallo bari nugaal mudug iyo galgaduud madaxweynuhu uu ku ammaanan yahay dhagax dhiggii hobyo ee waddooyinkii puntland mashaariicdii horumarineed inta waa lagu ammaanayay qof kastoo xil qabtana wuxuu qabto waa lagu ammaanayaa wixii uu xumeeyana waa la sheegayaa wuxuu qabtay kolle taabid anna igama qarsoona adna kaama qarsoona laakiin wax qabad ma taagno waxaa jiray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu ka soo noqday socdaalkii uu ku marayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka waxa uu la kulmay salaadiin odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin wuxuuna ku wargeliyey inaan waxna kala socon waxyaabaha ka dhacay muqdisho iyo khilaafaadka taabid iyo khayre ka dhex qarxay oo xubno ka tirsan madaxtooyada iyo dad ku dhow madaxweynaha ay la safteen khayre taasoo keentay in xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiye taabid uuna u hoggaansamay kadib madaxweynuhu wuxuu diray odayaal dhaqan xildhibaano wasiirka amniga wasiir dowlaha madaxtooyada waxaana loo diray in gudoomiye taabid iyo madaxweyne farmaajo ay ishor fadhiistaan kadibna la wada hadlo sidii taabid ula shaqayn lahaa dowladda soomaaliya laakiin gudoomiye taabid markii odayaashii waxgaradkii iyo xildhibaanada ay u tageen waxa uu ku wargeliyey odayaashii dhaqanka inuu u hoggaansamay xilka qaadista madaxweynuhu uu yahay madaxweynihii qaranka laakiin hadda uu
aad u mashquulsan yahay uu daalan yahay nasasho u baahan yahay uuna la shaqayn karin Khayre oo ah ra'iisul wasaaraha shoodhan nin agaasimo ku-xigeenka ah madaxtooyada Soomaaliya waxay dirbo qorsheeyeen in Khayre uusan ka bixin taabid Muqdisho oo la xiro waxa la isiri qaabka lagu xiri karo taabid waa qaab noocee ah wuxuu haystaa ilaalo lama weerari karo sida Cabdiraxmaan Cabshakuur barqacad looma dhici karo sida Cabdi Qaybdiid gurigiisa waa nin foojigana ilaalo haysta oo xil hayay marka waxa la yiri marka xilka uu wareejiyo maalinta talaadada waxay wareejintu ay dhacayso in lagu weeraro isla goobta oo lagu eedeeyo dambiyo ah qiyaamooyin qaran ku xadgudub hanti iyo waxyaabo Khayre hadda uu ku amray Axmed Cali Daahir xirlaaliyaha dawladda marka arrimahaas soo kordhay marka hadda waxa garoonka Muqdisho laga celiyay maanta oo taariikhdu ahayd 26 bisha koobaad gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee gobolka Banaadir oo ah nin dhalinyaro ah oo ah nin wax badan qabtay oo ah nin u taagnaa horumarka caasimadda xilkii baa laga qaaday wuu ayiday xaalada caafimaad buu u socday xil wareejin baa dhacaysa talaadada dhacaysa inuu maanta oo khamiis ah uu baxo maalinta axadna uu soo noqdo qorshaha sidaas buu ahaa laakiin garoonkii baa warqad la dhigay Khayre shoole iyo Khayre oo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada shoolaha iyo Khayre mu'aamalooyinkaasay degeen marka waxa isweydiin mudan dalka ma dawlad dimuqraadiya ka jirta mase dawlad keligii talisnimo ku shaqaysa Muqdisho ka jirta dawladda meel kale ka shaqaysa male waa Muqdisho waxa isweydiinta mudan qofkii Khayre isqabtaan ma gurigiisa lagu weerarayaa ma gurigiisa lagu dhacayaa waxa dawladnimo ma Khayre inuu mas'uul dawladeed noqdo ama inuu noqdo qof hogaamiye kooxeed ah oo dagaal diyaar u ah wax ka dhaxay ma jirto xasilooni darro siyaasadeed qalqalgelin amni keligii talisnimo ayuu Muqdisho ka wadaa waxa isweydiinta mudan waxay tahay waxaa jira gudoomiyaal degmo oo qaarkood Khayre isxijinay oo qaab qabil isku xijinaya ama gudoomiye degmo ha noqdo ama ku-xigeen ha noqdo marka haddii meesha qabiil ay tahayna waa gaar haddii nidaam dawladnimo iyo kala dambeyn iyo wax jiraan waa gaar qofka mas'uulka waa la eedeyn karaa qofka xasanada waa la eedeyn karaa laakiin mu'aamadooyin iyo abaabullo dad gaar ah la raba in lagu bartilmaameedsado wax soconaya ma aha madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ahaa madaxweyne nabadoon ah sidoo uu sheegay in nabadoonnimo ay u dheer tahay khilaafaad jiro hore u xaliyay socdaalkiisii galmudug wax badan buu ku soo xaliyay madaxweyne adaa madaxweynihii dalka ah adaa madaxweynihii sharciga ah arrintan waa arrin adigu ku taalo haddii aad leedahay Khayre ku aragtayna waa gaar haddii aad tahay madaxweynihii dawladda loo baahan yahay in ninkan Khayre ah oo aan khayraysnayn ummadda ka qabatidna waa gaar waxa lagu duulay Cabdi Qaybdiid waxa lagu duulay Cabdiraxmaan Cabshakuur hadda waxa aeroboortkii laga celiyay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir waxa warqad laga dhigay gudoomiye taabid saddex gudoomiye degmo iyo xogayihii gobolka Banaadir shalay adag keenay Khayre asaa amaanayo u dhahay taabid waa nin fiican hiblaayo gabadha waa nin fiican hiblaayo waa nin fiican hadda kulle qofkii Khayre isqabtaanba haddii duulaan lagu qaaday waa gaar haddii meesha maamul dawladnimo dimuqraadiyad ay jirtana waa arrin kale haddii qofkii la isqabtaba la leeyahay ma bixi karo hadda meesha dimuqraadiyad kama jirto dawladnimona ma jirto marka waxaan leenahay arrimahaas soo kordhay arrimahaas u baahan in wax laga qabto dawladnimada marka sidaan si ku soconaya ma ahan nidaam darro xoog leh baa socota maamul xumo awal iyadoo la keenay ciyaal dhalinyaro ah
oo ka shaqaynaya xafiisyadii dowladda ayaa haddana waxaa sii kordhaya xasilooni darro siyaasadeed qalalaaso loo horseedaya muqdisho ama taabid dir qayrow ama yariisow dir ama hurdaayo dir muqdisho waa maqaam muhurto muqdisho waa maqaam muhurto muqdisho 3,500,000 ka badan baa ku nool sida puntland maqaam garowe maqaam bay leedahay dad baa degan dhaqaalihii boosaaso muqdisho lagama cuno dhaqaalihii kismaayo muqdisho lagama cuno marka maqaamka qayrow ma hor istaagi karti qofkii maqaam ka hadlaba haddii aad leedahay wax soconaya ma jiraan waa gaar marka intaasa soo korartay madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa taabid way ishor fadhiisanayaan kolle wixii ka soo baxana dib baan idinkala wadaagi doonaa laakiin waxaan idiin sheegayaa guddoomiye taabid waxaa ka go'an oo maantana ka go'an shalana ka go'nayd maqaam inay hesha muqdisho guddoomiyihii ka horreeyay ka go'an tahay qof kasta oo reer muqdishaawiya ka go'an tahay ama dibajoog ha noqdo ama gudajoog ha noqdee maqaam muhurta waa muqdisho qayrow ama diid ama shoodhow diid shoolow diid ama hebel cali shakuurow diid ama waa 4 nin oo isku qabiila 4 sheeko waxay keeneen daarodisim qofkii farmaajo wax ka sheego qofkii waxaas dowladnimo ma ah waxaas dowladnimo kuma shaqayso dowladda xasan sheekh maxamuud wala mucaaraday siyaasiyiin qaybo kala duwan la ganacsato welina qof madaxweynaha mucaaraday loo xiray ma arkin dad la xiray waa jiraan dhowr qof oo siyaabo kala duwan xilliyadaas loo xiray waa jiraan laakiin waxa muqdisho hadda ka socda waxaas dowladnimo ma ah qofkii qayra isqabtaan qofkii ragga madaxweynaha ku dhow qabiilka u abaabulan hadda waa 4 nin oo daarooda oo qaab qabiil u abaabulan gurigiisa lagu weerarayaa siyaasi hadduu yahay hadduu mas-uul war afhayeenkii gobolka banaadir oo ah gaashaano nabad sugida xabsi gurigaa la gelshay qayrraa xiray qayrra qofkii xisbi haysto isqabtaan wuu weerarayaa kii xasaanadla guriga ugu dhacayaa kii xil haya xabsi guri waxaas dowladnimo ma ah berri waxay soo wadaan afhayeenkii imaaraadka u shaqaynaya nidaam xumada meesha ka jirto war muqdisho isbeddel baa dhacay hogaamiyaasha qaarkood la weeraray waa kuwa isbeddelka u ooleynayay dadkan hadda guryahoodii in lagu weeraro la rabo in la xiro la rabo loo hanqaltaagayo waa dadkii dowladnimada wax ka soo dhisay waa dadkii farmaajo u ooleeyay qayrna waa qofkii ku keenay jasaar baa tahay taabid waa ninka ku keeno xilka kuu dhiibay haddana waxaa rabtaa inaa gurigiisii u dhacdo marka waxaan leeyahay waqtigii uu nagu socdaa waa idinku dheereeyey dowladnimada ma ahan sida qayrra wax ku wado madaxweyne qayrra waa in qaranka laga qabtaa qayrra waa ninka ku fashalinayo qayrra waa ninka shacabka iyo dowladda iska hor keenayo hadda waxaa xoogaha caqabo ay ka jirtaa qaar ka mid a qabaa'ilaadka dega muqdisho haddii wixii dhan la isku daro madaxweyne qayrra kuma difaaci karo qayrrana qabiil ma keensanaya shakhsiyaad baa keensaday marka waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu yahay nabadoon inuu hadda kasoo nabdooniyey puntland iyo galmudug xurguftii ka dhexaysay inuu xalliyay xurgufyo ka dhex jiray galmudug meelo badan caabud waaq iyo dhuusamareeb colaad baa ka taagnayd dhuusamareeb iyo balambal dhuusamareeb iyo xeraale caqabad baa ka taagnayd dhuusamareeb iyo cadaado caqabad baa ka taagnayd kulli madaxweynuhu wuu soo xalliyey waa ku ammaanaynaa madaxweyne sidaas aan kugu ammaanayno dib u heshiintaas iyo horumarkaas aad soo samaysay ayaan taabid ugu ammaanaynaa waxqabadka uu sameeyey qayrrana ugu dhaliilaynaa qaladaadka qaranka uu ka galayo ra-iisul wasaarihii ugu qaladka badnaa wuu qayrra ku socdaa waddadiis ra-iisul wasaare ka qalad caligeedii etoobiyaanka inuu dad badan layaa qaladaad lagu hayaa laakiin ninkan qabyaalad baa u dheer
dana siyaasadeed oo qarsoon wasiiraha la iska eriyaya taas waa shaqadiisa laakiin sida mooryaamiis buu u dhaqmayaa maleeshiya haysto maleeshiyaad haysto u dhaqmayaa Khayre marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa kulley barnaamijyo dambana waa qaban doonaa taabid madaxweynuhu wada is arki doonaa wixii kasoo kordha waa idin soo gudbin doonaa qorshaha sida Axmed Cali Daahir uu diyaariyay waa jirtaa oo ah in maalinta talaadada ah la weeraro gudoomiye taabid ku-xigeenkiisa iyo dhowr gudoomiye degmo ma aqaan hadda gudoomiyaashaas degmooyinka wax lagu maagay kulley taabid bay saaxiib la ahaayeen afhayeenkii gobolka wiilkii yaraa ee sarkaalka nabad sugidda ahaa saadiq john nin la yidhaaha lagu amray waa la xiray hadda qofkii taabid hadda waxay maraysaa qarannimadii Soomaaliya dadkii ka shaqaynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha in la yiraahdo sawirkii taabida saarateen shaqada waa laga eriyay laba qof baa la eriyay gabar iyo wiil gabadha aabaheed xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranku ahaa waa la eriyay waa la ruqseeyey hadal ruqseeyey gabadha maxaa lagu ruqseeyey war guddi shaqaale rayid ma jiro guddi shaqaale madax bannaan ma jiro guddiga xaquuqul insaanka ma jiro tacadigan aaway Khayre tacadiga qaranku uu ku wado cid ka hadlaysa ma jirto war dhul boob xoog leh wasaaradihiisa wada wasaaradaha xukuumadda dhul boob wada wasiiradda isboortiga Khadiija Ilkacas waxay dhul siisay oo si cad u sheegtay in xiriirka kubadda cagta dhul wasaaradda ay lahayd ay siisay ee wasaaraddu ka maarantay yaa siiyay awooddaas haddii dhul dad lagu haysanayo dhulka Khadiija Ilkacas ay bixiso xiriirka kubadda cagta ay siisay hal la isweydiiyo madaxweynow nabadoon baad sheegatay nabadoon baad tahay Khayre qaranka qabo Khayre qaranka qabo madaxweynow haddii sidaan wax ku sii socdaanna wallahi xasilooni darro nidaam xumo maamul darro shaqo la'aan haddaba shaqo la'aan jirtaa burbur Khayre u horseeday dawladda warnaba sugidii Soomaaliya waxaa loo dhiibtay dad inay waalan yihiin iyo inay fiyow yihiin aniga sheegi karin oo qof kasta iska soo qabsanaya qof kasta qofkii Khayre wax ka sheego qofkii Facebook qofkii Khayre is hayaan saar taxta soo xiraay taliskii nabad sugidda gobolka Banaadir fashil xoog leh wuxuu u baahan yahay dhammaantiis in la baaba'iyo horaag cusub la keeno wuxuu u baahan yahay hogaankii nabad sugidda in la soo wali wax la soo magacaabo leh wiil yaro asaba laba magac leh sida shabaabka u shaqeeyay wallahi na bari sheegay Cabdiqaadirna waa la yiraahdaa si hayaa nabad sugidda taliyaha ninka jaamacna waa la yiraahdaa laba magac la baxay boorka midka loo dhiibay timo weyn waa la baxay hada ninkii dadka garaac jiray way xabsiyada dadka garaac jiray Cabdiraxmaan Caata Allah timo weyn la baxay waa laba magac si shabaabka u shaqeynayaan waxaas dawladnimo ma ah madaxweyne waxa loo baahan yahay agaasimayaal wax qabad leh dad muuqda dad dadku wax u qabanaya dad shaqeynaya ina keentid ma aha wax Khayre kale madax yar leh sidoo madaxiisu u yaryaha maskaxdiisa iyo aqligiisana u yartahay nabad iyo nolol hadda nabad iyo nolol waa de xafiisyadiisu waa telefoon soo diray marka waxaan leenahay nabad iyo nolol ma jirtaba guriyi inuu naxdin buu ka shaqeynayaa burbur iyo baaba nabad tan maxay tahay nabad taabid maanta gashay gurigiisa oo la rabo in xafiiskiisa lagu weeraro maxay tahay warcaaw mid iyo qora wallahi billahi waa dhaartay taabid maalintii Khayre iyo xulufadiisa isku aadaan burbur xoog leh qarankan u foosaari doonaa haddii la leeyahay yariiso wax qaban karo wallahi billahi Cabdiraxmaan cabsikuurtiisa wali la xalin raggi la dilay wali aan laga wada hadlin meydkiya wali meel ku sheegin cabdi qeybdi arintiisa wali indhaha ka furaysanaysan wariyaan lagu fuudaan arintan taabid كل ورد رابع عكارو ما عندنا صومالي ترى ما أنت ترى دو الله ودرني إدمه يبيح قدم بيو يعني أكيد دونا وعكارو الله يا بناهي أنا بور كان ماليشيا قبضة توقف كي قيرئيس قبطان با ما بيح كرو
dhaqanyara wuxuu bedelay hogaami kooxdadii bedelay ruuxaas dowladnimo maaha khayro ama shabaab noqo oo sharwado noqo hal iska kaa dhacsho ama mas-uul dowladeed oo madaxweynuhu uu soo magacaabo baarlamaan soo maray noqoy midda kale baarlamaanka soomaaliya maxay qabanayaan ayaga ma baarlamaan soomaaliya mase waa baarlamaan la haysto war waxaan wax ka qabta eeraboorkan warqadaha la iska geysanayo qofkii la rabo cabdiraxmaan cabdishukuur ma bixi karo hebel ma soo geli karo maxamuud carab eeraboorka ma ka degi karo ma ka bixi karo canto war guddoomiyaha degmada hodan maxaa warqadda looga dhigay eeraboorka guddoomiyaha degmada waa beri gabadha miskiinta maxaa eeraboorka warqadda looga dhigay maxaa lagu haystaa maxay dembiyo galeen taabiga la safan yihiin dowladnimo saas maaha dowladnimo qayrka qabyaaladiisow saas dowladnimo ma ah waa mahadsantihiin waa wada socon doonaa haddii allah awooddu raali ka noqdo waa saaxiibkii maxamed bashiir wixii soo kordha waa in la socodsiin doonaa haddii allah awooddu raali ka noqdo nabadgelyo akhyaarta qiimaha leh